السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا كحران أما أصحابتنا كحران جنرال كين سومالي فلاش نيوز لما أنتي صور هذا صاحب يلا عندما فيديو كان عرضنا إن دي صدقنا أي أحمر كمية دجنين أو لود دجايو باشا خاتمه SSC يولي بقى جرادة دجنين كان أي واحد صوت دجاي أو مركا هدلايا ونين إسقو أضيع سياسي أنت بدن أوك مش أي مركز وحوجها أما اللي بعتذا مش أي كإيمان كرتو إسقو مركان دجنين صوت شدي لايفنا usoo galay fariintaasna sheegay in ay marka ku socoto oo la gaarsiiyo garaadka guud ee markaas SSC beesha dhulbaante ee khaatumo iyo 14 garaad iyo waliba guud ahaan jamaahirta reer khaatumo iyo beesha markaas ama beelaha meeshaas wada dega ee marka dagaalka ku jira hadaba odayga siyaasiga sheegayna in marka isagu wax badan og yahay ayaa digniintiisu ay ahayd inuu wax badan ka hadlay oo ku soo socda khaatumo garaadada iyo sababta ay hadda Muqdisho u joogaan ee dawladda Soomaaliya ay marka ugu marti qaaday garaadada magaalada Muqdisho taasoo waliba garaadkii guud isagu ka maqan yahay uu marka la socon in uu sheegay uu dhahay gaadmo badan iyo sir badan oo qarsoon ayaa socota oo aan rabaa inaan marka wadiga ay u dhahay garaadada oo la rabo siriq markaas in loo dhigo waa wax aad u weyn فيديوغاس ayaa rabnaa marka idin soo deeyno oo aad nala daawataan iyo marka fariinta culus ee u socota garaadada iyo garaadka guud iyo beesha dhulbaante gabi ahaanba intayna videogeena u gudbin ama ayna marka u gudagelin saaxiibayaal hadii ay tahay markaas markii kugu horeysay ee aad channelkeena soo boqoto oo aad ugu cusubtay fadlan subscribe ka noo taabo noo share gare noo like gare intaas wax weyn ayay noo taraysaa hadaba aan u gudubno videogeena iyo markaas odayga laftigiisu aan kaba fogeynba oo ka soo jeeda halkaas oo sheegay markaas wax badan iyo sir badan oo marka ka qarsoonayd garaadada rabana markaas lugooyadii ugu weyneed in lagu sameeyo waa sida uu hadalkiisa isagu inoogu dhigay ama inoo sheegay isaga oo sheegay marka oo dhahay arrintan dhanba waxa wata oo ka masuula waa madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle xasan sheekhna waa agent markaas la soo diray oo lagu shaqeysanayo oo ugu talagalay markaas beesha khaatumo iyo garaadadoodaba inuu kala burburiyo oo uu shaki dhexdeeda ku abuuro siyaasadooda iyo mabda'ooda dagaalkana markaas la kala jabiyo oo markaas ay u kala baxaan dhowr qaybood oo iska soo horjeeda bal siyaasadda la sheegay marka in lagu burburinayo garaadada oo la iskaga horkeenayo siyaasadda khaatumo iyo dagaalka ay marka SSC kula jirta Somaliland oo marka mid cad oo meel yaala iyo dawladda Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh oo dhahay qorshe ay wataa in uu ku burburiyo markaas SSC iyo hadafkooda dagaalka bal aan isla aragno بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaan dhageysanayay oo daawanayay xaflad in Cabdiqani Allah u naxariistay loo qabtay oo uu ka hadlayo faratoon wuxuu yiri dagaalku dagaal dhulbaante ka dhashay maaha waa dagaal daarood ka dhashay qabeenta وقل يا لبعت قف بعد البعت اللي جدلي حدراوي بقول دبي ود جوكتي هالكاوية هالكي كعد جماهيرته كدبنا سديد يطبن مع المود بعد البهنت الدجال معي وادي إنا عم باشلة جوجيوش صبح اللي نصور رنا وادي حرري شديد يتومع المود كدب هدي ولا لهول أسوق قرمدين SSC صوك الموسى ككينا يقربت كقبلي عرب سيو بربراء بورمي سيلة جبوتي وروحا سمياني كومو غنفرطونو كومو مغدان nin hadduu seexdo oo soo tooso waa isagii xalqadan waxaa la yidhaahdaa faratooniga gaarsiiya haddaba inta uu rabo inuu ka hadlo iyo qorshaha uu rabo inuu ku hadlo ayaa marka uu dhowr qaybood u kala saaray ta koowaad ayaa marka waxa uu ku bilaabay waa ninkii marka ayaanti dhawid la dooranayay ee lagu caleema saarayay ama la sheegay in lagu caleema saarayo markaas Somaliland magaalada Hargeysa oo uu marka Muuse Biixi watay ayay tan arrintan fariintan koowaad ku socotaa tiisa labaad iyo tiisa saddexaad waa mid garaadada iyo jamaahirta iyo wixii marka dagaalka wada ee reer Khaatumo ama SSC ku socota oo uu sheegay markaas gaadmo badan inay socoto ayaal taasi fariin culus bay ahayd oo ku socota marka garaadada آخركين وكسو جبجبية إن أي معلنتا سنين أو أهيد مانتا إن أي كبسوا بحان مجالات المقدسة أو وشاقي
shirqool iyo siriq ayaa idin taala shaki badan ayaa jira hawshiina aad markaa u joogteen magaalada muqdishona waxa uu go'aankeedu ahaa mid uusan markaa xasan isagu uusan si toos waxba ugu qaban karin oo la qorsheeyay markaa in Djibouti laydin geeyo halgankiinii iyo dagaalkii aad kula jirteen iyo dhulkiinii aad rabteen inaad xoreysataan laga dhiga markaas mid iska dabuureegta ah ama ciyaar ku socota oo wax ka socod aysan markaa ku jirin farintani ayaa ahayd marka mid culus oo ku socota garaadada reer Khaatumo iyo beesha dhulbaantaba videogan halkan ayaan kaga tageynaa video ku xiga inta aan ku kulmayno waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh